dunidan aan guudkeeda saarannahay qof walba meel ayay u joogtaa xaaladda waxaa la sheegaa in bulsho walba ay leedahay dabaqado kala sareeya 3 dabaqadood ayaa la tilmaamay in ay u kala baxaan dadyowga caalamka dabaqada sare oo ah dadka dhaqaalaha leh dabaqada dhexe iyo midda hoose oo ah kuwa nolol maalmeedkooda la daalaadhacaya inta badan way adag tahay in hal qoys ay ku kala noolaadaan dabaqado kala sareeya iyo midda hoose oo dadku waxa ay u badan yihiin in qoys walba uu hal dabaqad ku nool yahay haddaba qolo walba waxa ay leedahay dhaqan u gaar ah iyo hiddo ay iska dhaxlaan dadyowga qaar walaal iyo ehel isma gacan qabtaan oo waxba isuma taraan qof walba waxa uu u dadaalaa in uu noloshiisa meel ka soo saaro balse dadka magaca ku dhex leh bulshadooda sida madaxweynayaasha inta badan lama arko in qoysaskooda ama qof ayaga ka tirsan ama ku magac tirsada uu ku nool yahay nolol hooseysa ma aaminsan tahay madaxweynaha ugu shakhsiyadda wanaagsan ee Mareykanka soo mara in uu walaalkiisa nolol hoose ugu nool yahay isku raran ku taala dalka Kenya? I think my life is good here because I do a lot of charity work for the community. Yeah. Everyone. I'm not racial. I don't differentiate people as in with their religion or something, but I do it as in I do it voluntarily. I have my son here. Your son? Yeah, my son here. I have like my brothers. So we collaborate. We talk with each other, but it's like I'm the only one who's here, and my nephew is also here, but Barack Hussein Obama waxa uu dhashay 4 bishii August sanadii 1961 waa siyaasi Mareykan ah balse asal ahaan ka soo jeeda Kenya waxa uu Mareykanka ka noqday madaxweynihii 44aad waxaana uu talada dalkaasi hayay muddo 8 sano ah oo dadka Mareykanka ay siyaasadiisa aad ula dhaceen tiro 2 jeer ahna ay doorteen Obama wuxuu ku dhashay Honolulu ee gobolka Hawaii waxaana uu ka qalin jibiyay jaamacadda Columbia sanadii 1983 waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay dalkaasi Mareykanka ka hor inta uusan noqon madaxweyne. I'm kind of safe because I was brought up here, and I also have my security detail, and my nephew is also old enough to take care of me, so I'm kind of good. Yeah, we do have a talk once in a while, but I think because of our different cultures, it doesn't have to be like every day or every week. So it's like we have different cultures. It's not like George Hussein Obama waxa uu muujinayaa in uu ku qanacsan yahay nolosha uu haatan ku jiro isla markaana uu u adeego bulshada uu la nool yahay. It's great to be called that name. I think it comes with all the benefits, and the disadvantages of that also, because people expect you to be, if they call you an Obama, then they expect you to have like $1 million in the house, and that's not the fact, So, yeah, that's it. Okay. Of course, I want to be a great person. Right now, I'm studying corporate communications. So, in the next 1 year, I want to be a great person in this country. In this country? In this country, sure. Because this is my motherland. I can't really do anything bad for it. Okay. If anybody offer you to go to America, you go? Yeah, to study. To study? To study, of course. Have you ever seen your uncle, Barack Obama? Yeah, I was with him the last time. When he came back, he came to Kogelo to support the Sautiku. We were there with him.
Yeah. We protect him with our soul and our hearts. He's our brothers. You see the children walking around, they are free. There's a mosque, there's everything, you see. So we are protected by the power of nature. waxa uu ka dhawaajiyay in uu muslim yahay isla markaana uu jecel yahay in uu u adeego dadka muslimka ah. waxaan dhowr mar ku celceliyay ma rajaynaysaa in aad noqoto sida uu walaalka noqday, balse isagu waa uu diiday oo waxa uu leeyahay siyaasad ma rabo, siyaasina ma doonayo in aan noqdo. taariikhdii gaabneed ee aan uga hadlaynay nolosha George Obama oo ah ninka la dhashay Barack Obama ayaan intaa ku soo gabagabeynayna.